Dhageystayaal, ku soo dhawaada qisadii la magac baxday dhacdadii iigu murugada badnayd noloshayda. Hordhac. Qoraalkani maaha sheeko madadaalo, mana aha dood u baahan garsoor. Waa xasuus aan hadal lagu koobi karin, qaylo aamusan oo qalbigayga ku dhigan, murugo aasan oo maskaxdayda gubaysa. Waa dhacdo aan weli ka go'in maankayga, xanuun aan bogsan, habeenno badanaa ii diida hurdada, maalinna aan demin. Xabsigu maaha meel lagu xidho jidhka oo keliya, waa qabriga nolosha, meel lagu aaso dadka iyaga oo nool, lagu damiyo codkooda, laguna baabi'iyo rajadooda. Tani waa bilowga sheekadeenna, mid aanan dooran balse aan iloobi karin. Bilowga xabsi nololeed. Sanadkii 2012 bishii Luulyo ayaa la iga qaaday xorriyaddii aan lahaa anigoo aad u da'yar. Ma xasuusto si dhab ah maalintii ay ahayd, balse waxaan si cad u ogahay inay ahayd bil madow oo noloshayda beddeshay. Waxaa la igu xidhay 3 xabsi, mid degmo, mid gobol, iyo ugu dambayn jeel ciqaabeedkii deegaanka Jeel Ogaadeen. Halkaas oo aan ku qaatay inta badan muddadii xabsigayga marka laga reebo dhowr bilood oo aan ku xidhnaa xabsiyada degmada iyo gobolka. Muddo 5 sano iyo dheeraad ah ayaan ku jiray xabsi aan lahayn qabow iyo naxariistoona. Waxaan ku noolaa meel ay adag tahay in lagu noolaado. Waxaan ku jiray god madow, meel aan adduun iyo aakhiro midna ahayn. Waxaan la noolaa jirdil, gaajo iyo bahdil joogto ah, balse waxaan la qabay dad badan oo ka buuxay xabsiyada. Jeelkaasi wuxuu lahaa heer ciqaabeed ka sii xun wax kasta oo maskaxda bini'aadam suuraysato. Heer kasta oo nafta lagu ciqaabo waan la kulmay. Xasuusta ugu murugada badan. Haddana maanta ma doonayo inaan ka sheekeeyo ciqaabtii jirdilka iyo naxariis darradii aan la kulmay. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago dhacdo ka mid ah kuwii iigu xanuunka badnaa intii aan halkaa ku jiray ama noloshayda oo dhanba. Waa geeridii aabbahay, Sheekh Cabdiraxmaan, Ilaahay ha u naxariisto. Markii la igeeyey Jeel Ogaadeen, booqasho maxaabiistu ma haysan. Dad kooban oo aan siyaasad ku lug lahayn ayaa laga yaabaa in marar dhif ah loo yimaado, iyagana durba waaba laga jaray oo waxaan noqonnay isku wada mid. Nalooma oggolayn in aan wax war ah ka helno ehelkanaga, marka laga reebo in qof reerkaaga garanaya la soo xidho, sidaasna war kugu soo gaadhsiiyo. Balse ma jirto si kale oo war looga heli karo. Intii aan ku jiray xabsigaas 3 jeer oo keliya ayaan ka war helay qoyskayga. 2 ka mid ah waxay ahaayeen warar iska caadi ah oo sheegaya nabad, balse kii 3aad wuxuu ahaa mid iga gariiriyey. Waa geeridii aabbahay, Allah ha u naxariisto. Subaxdaas waxaan joogay masjidkii jeelka oo jiingad ka samaysnaa. Waqtigaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah xilliyadii ugu roonaa jeelka xagga ciqaabta. Waxaan dhageysanaynay kitaabka Raxiiqul Makhtuum oo uu akhrinayay Sheekh Cabdirashiid Xadaarad, taariikhda rasuulka sallallahu alayhi wasallam, oo aan si gaar ah u jecelahay. Anigoo dareen buuxa ku dhageysanaya cashirka ayaa waxaa daaqadda masjidka soo istaagay walaalka Yuusuf Shahiid, oo isna muddo dheer ku xidhnaa jeelasha Goday iyo Jeel Ogaadeen. Wuxuu ii soo diray ruux si la igu yeedho. Waan kacay oo waan u tegey. Waxaan ku idhi, maxaad sheegtay walaal? Wuxuu yidhi, waxba walaal, ma maqashay inuu aabbaheen dhintay? Ereygaasi wuxuu iiga dhignaa dhulgariir iyo adduunkii oo dumay. Waxaa baxay tiirkii noloshayda, waxaana iga bakhtiyey iftiinkii u shidnaa rajadayda. Waan aamusay, waxaan la gariiray naxdin. Ilmo ayaa iga qubatay. Waxaanba iska iloobay inuu hortayda taagan yahay walaalkay. Markii aan yara calool adeegay, waxaan cod daciif ah ku weydiiyey, maya, ma maqal, yaa sheegay? Wuxuu igu jawaabay, rag laga soo xidhay Wardheer. Yaab. Waxaan is idhi Wardheer. Anigu waxaan ku xidhanahay Jigjiga, qabri bayax, oo aabbahay ku dhintayna waxay ii jirtaa 50 kiiloomitir. Laakiin warkani wuxuu iiga yimid Wardheer oo aanan weligay arag. Waxaan dhab u xasuustay mahmahdii ahayd
warxumi dugsi ma fadhiisto. Waxaan haddana weydiiyey goormuu dhintay walaal. Wuxuu igu jawaabay 3 bilood ka hor sida ay sheegeen. 3 bilood ayaan la noolaa rajo been ah, anigoo aan ogeyn in tiirkii noloshaydu dumay. Waxaan isu haystay nin aabba leh, dadka ayaan iskala mid ahaa cakow warla'aanay. Wuxuu iigu daray, walaal u sheeg culimada si caawa quraan loogu akhriyo aabbo. Wuxuuna ii raaciyey ku adkee hunno si aan loo iloobin. Xilligaasi waxaan qaadanayay dawada dhaxanta tiibay, xanuunna igu reebay, naafana aan weli la dareemayo raadkeedii. Waxaan gelayay guriga 20aad ee maxaabiista. Waxaan ahaa imaam dadka salaada tukiya. Gurigana waxaa sheekh guud ka ahaa saaxiibkay Sheekh Maxamed Rinji. Maalinkaas oo dhan ilmadu igama qallalin. Salaadaha waan tukanayay, laakiin qalbigaygu ma garanaynin meel ay marayaan ragcaduhu. Sidii caadada ahayd, casarkii xabsiga waa la fayli jiray si askartu dadka u tiriyaan hal mar. Meesha ma taalo naxariis iyo naxdin. Waxaa la igeliyey fiiladii, anna waan galay, aniga oo u ekaaday ruux ka quustay nolosha, ilmaduna ay ka dareerayso dhabanadayda. Wiilashii tirin jiray maxaabiista waa kuwan soo galay ee naxareeyey. Markii maqribkii la gaadhay, aniga oo aad u wareersan ayaan dadkii salaada geliyey. Waxaan bilaabay faatixada iyo suuraddii ku xigtay oo aanan hadda xasuusan tay ahayd. Balse halkii aan ka rukuuci lahaa ayaan si toos ah u sujuuday. Waxaa isqabsaday, subxaanallah, anigu ma garanayn waxa dhacay. Waxaan ka soo baxay booskaygii si loo helo imaam kale oo dhammeeya salaada. Ilmadu si aan kala joogsi lahayn ayay iga qubanaysaa. Ma diidani qadarka Alleh, ma inkirayo geerida, laakiin waxaa i murgiyey war iyo wacaal la'aanta aan la noolahay iyo in aanan awoodin in aan maqlo xogta ehelkayga xitaa hadday wada dhintaan. Allahu naxariisto aabbahay. Waxaan ahay agoon aan sharcigu xaq siinaynin. Weli waxaan tabayaa taladii iyo tusaalihii aabbannimo. Waxaan la dhashay wiilal iyo gabdho tiro badan oo gaadhaya 14. Haddana ma jiro cid ii buuxin karta booskii aabbahay baneeyey. Qoraalkani waa xasuus qoran, xanuun joogto ah, iyo dareen muujinaya culays iyo xasuus aan la noolahay. Waa dhambaal murugo iyo cil soo burqanaya oo laga dhaxlay xanuun, su'aalo aan jawaabo lahayn, iyo niyad-jab aan joogsi lahayn. Geeridii aabbahay waxay igu reebtay dhaawac nafsiyadeed oo aan bogsan. Waxaa jira boqolaal qof oo la nool xasuustayda mid 1000 jeer ka murugo badan, oo qalbiyadooda ku celinaya xanuun ayna cidna la wadaagin. Allow dadka u gargaar. Ilaahow naxariista aabbahay iyo dhammaan muslimiintii dhimatay. Rabbi ha u nuuro qabriga, hana ka dhigo hoygiisii jannatul firdowso. Aamiin. Walaalayaalow, waxaan idinka codsanayaa si qalbi furan inaad aabbahay igu soo ducaysaan. Dhegaystayaal, waxaa qormadani qoray Maxamed Sheekh Cabdi oo loo garan ogyahay Jiilaani Wardoon. Waxaana codeeyay anigoo ah Deeq Cabdisamed. Waxaan idin soo gaarsiiyey page-keenna Deeqa Deegaanka.